waraysi khadka telefoonka la yeelanay maareey ku-xigeenka dekedda Berbera Cabdi Cabdilaahi Xasan maareey ku-xigeenka dekedda Berbera Cabdi Cabdilaahi Xasan ugu horeynba ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee bulsho maareey aad baad u mahadsantahay Luqman adiga reer bulshada maalmihii ugu dambeysay waxa soo baxay wararka sheegaya in ay dekedda Berbera guud ahaanba ay joojisay shaqadii ay qaranka u haysay wararkaasi maxaa ka jira mudana maareey warkaasi soo yaraato ma laha dekedda Berbera waa dekedda qaranku leeyahay si fiican baan u shaqaynaysaa wax istaagayna ma jiraan marka ma garanayo runtii wararkaasi meel ay ka yimaadeen waan gartay maxaa ka jira wararka sheegaya in muddo 15 cisho maraakiibtii aan wax rar laga dajin isla markaasina ay badda taagan yihiin oo ay sugayaan in laga dajiyo halka maraakiibtaasi qaarna ay dib u laabteen markii laga dajin waayay cabashooyinka ganacsatadu runtii way jiraan gaar ahaan anigu waxaan ogahay oo cabasho ay nooga keeneen waqtigan lagu jiro waa waqtiga markaas ay xooluhu dhoofaan inaga inta badan dekedda waxaan u isticmaalnaa inaan wax kala soo degno laakiin kooban baynu wax ka dhoofinaa marka dekeddu way kooban tahay koobnidaasna waxay keenaysaa markaa in waxa la soo dejinayo si laakiin marka wax laga dhoofinayo gaar ahaan adiga xilligan oo kale in ay jiri karto markaa waxoogaa fiyu ah ama muddo la sugayo maraakiibta soo xiristeeda iyo dejintuba sababtu tahay waxa la rarayaa xoolihii noolaa sanadkana insha Allah taala xoolo fara badan baa ka dhoofaya dekedda Berbera marka ma aha in wax u gaar ah anagu aanu joognay maamulka iyaga laamba aanu dekedda maamuleynay waxa ka jirtay marka xilligan oo kale inay aad iyo aad dekeddu ay biisi u noqoto oo maraakiib badan markaas xoolaha qaadaya ay markaas ay ka dhoofaan dabadna maraakiibtii rarka sidee la yiraahdo yara suga xilli markaas arafo ay ku yar beegan tahay oo iida dadkuna waxay doonayaan badeecadeeda in dhaqso loo soo dejiyo marka arrintaasi in cabashada ka jirto xukuumaduna waxay uga muujisay markaas inay wax ka qabato baamishka way la kulantay saddex wasiir baa ka yimi wasiirka markaas arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda iyo wasiirka ganacsiga iyo madaxtooyada intaba halka inoogu yimaadeen madaxtooyada markaas waxa ka jiray qof senior officer arrintaas laga wada hadlay in wax laga qabto xalkeedana waa lagu jiraa maanta shir baan ku jirnay runtii oo ahayd baamishkuna inay noo yimaadaan si aanu arrinta xal uga helo marka arrinta gacanta lagu hayaa baamishkana waxaan lahaa Xasan Reen xilligan xoolo badan baa inaga dhoofaya alaabo badan oo konteerana abaatimi dekeddu asad muddo dheer socotay bay leedahay oo ah in priority-ga koowaad la siiyo markaas xoolaha la dhoofayay oo waxa u leeyahay laftabada dhaqaalaha talabaadna waxa weeyaan maraakiibta sita konteenarada oo iyagu dad fara badan oo u xidhan saddexaad priority-ga saddexaadna waxa weeyaan waa WFP ama raashinka hay'adda ay halkan markaasi maareey hadii shirkadda DP World markii lagu wareejiyay ilaa haatan laga aradan yahay qalab lagaga dajiyo maraakiibta rarka maxay shirkadda DP World ku soo kordhisay dekedda Berbera runtii wax fara badan bay dekedda ku soo kordhisay marka ugu horeysa nidaam iyo kala dambeyn bay keentay qalab protocol shaqaaluhu ay xidhaan bay keentay dekeddu waa nadiif oo si fiican bay markaas aad u aragtaa isbedelka waxay kale oo ay keentay shiftiyo 24 saacadood bay u shaqeeyo marka deked wax fara badan bay runtii ay inagu soo kordhisay waxay kale oo iyaguna habka ay u qaybisay markaasi kaalalkeena 4 barkab baa soo xidhan kara marka mid doonyaha gaar u siisay midna konteenarada midna muxuu ahaayey cargo marka nidaamka wanaagsan ee lagu shaqeeyo iyo shaqadii muddo 24 saacada socota ayay soo kordhisay runtii qalabkii markaa way dalbatay qalabkii ay ahayd markaa July ay timaado dib ugu yara dhacay waxaan rajaynaynaa qalabkaasi inuu dhaqso u yimaado oo bisha October kale uu soo gaaro inta ka horeysana qalabkeeni qalab ay keeneen baa iyaguna jirta oo ah iyo kaalmo rabo way keeneen oo ah kuwan iyagu soo dejiya
maxay ahaytoy containerada soo dejiya kuwaasna way keeneen kuwa kalena way ku daba jiraan waxaynu filaynaa qalab gaadhaya ilaa 8 milyan iyo badh in lacag gaadhaysa inay qalab soo siiyaan oo ay noqoto mid dekedeenu ku qalabaysan qalabka casriga ee ugu dambeeya laakiin waxa weeyaan muddo yara qaadanaysa arrintii sida awadeed hal la samro runtii maalgelintani waa mid baynu leenahay imikaba dekedii way ka muuqataa wax fara badan bay inoo qabteen insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa markaas qalabka iyo wixii inaga dhiman la tabayana inoo dhamaystiraa sidoo kalena ay dekedii ama terminalkii containerka ahaa ay inoo bilaabaan sanadkan cusub ugu dambeyn sanadkan cusub bilowgiisa haddii ilaahay ka dhigo markaa dee wax waliba mudday qaadanayaan hala samro muddada arrintan oo kalena annaga way nagu dhici jirtay priority-ga iyo sida laysu habaynayo ayay ku xidhan tahay marka baayac-mushtarka cabasho badan ba arrintaa ay ka haystaan waananu u fahansanay cabashadooda DB walna waanu u gudbinay ha yara sugeen marka insha Allah arrinta xal baa lagu wadaa maalmahan bashirar baa arrimaha ku saabsan ayaa ka socday markaasi maalmahanba aad baad mahadsan tahay maareey ku-xigeenka dekedda caalamiga ee Berbera Cabdi Cabdilaahi Xasan wareysigan aad nasisay maareey waanu kaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga